السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما انتم حروا هنا عنده محل هي 10 كلمات او كسب سنة سيموليشن كا بيت تريد كاست دوت كوم شرا waxaan kasoo hadalay qaabka si loo diiwaan geliyo markaas diiwaan gelisid lacagta la bixinayo $3 iyo xiran ay ahayd iyo bar kadib isdiiwaangelinta kadibna inaad lacag kusoo darsan kartid qaabka lacagta lagu soo darsado iyo qaabka trade loo furo long position iyo short position intaba soo isticmaalnay maanta waxaan tagi doonaa haddii ilaahay shaashadaan tagi doonaa kadib waxaan samayn doonaa inaan sameyno mid cusub inaan kusoo darno mid cusub iyo waxyaalaha kale la iska rabo sida niisida markay jiraan qaabka la iskaga ilaaliyo niisida sessionada kale sida loo geeyo waxyaalahaas oo as leeyahay amay muhiim u tahay kuwaasaan rabaa kulley hadduu ilaahay inaan kusoo daro intaasaan kusoo dari doonaa kadib casharka labaad ayuu noqon doonaa waxaan rajeynaya in wax badan aad ka faa'iido dhanka shaashada markaan soo aadna sidaas ayuu ogyahay kadib waxaa leedahay meesha shalay aan joognay marka tradeka uu ku furan yahay waxaa leedahay exit sessionka markaa dhahayd yes marka exit sessionka aan dhahno oo halkaan aan joogno waxaan ku dhufan doonaa qaybtan ay ku taalo backtest aan ku dhufan doonaa backtest markaan ku dhufano waxaan kusoo dari doonaa new session halkaasay ku qoran tahay aan calaamad ku aadiyo si loo arko halkaasay ku qoran tahay in session ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaa kusoo baxay boxkana kusoo baxay sida shalay waaye halkaas waxaa gelin kartaa magacaada aragti inaad u bixisid halkaan lacagta aad ku trade garaynaysid halkaana beer marka halka magaca waxaan gelin doonaa waxaan dhehaynaa lacagta magaceeda aan magac ugu dhigaynaa euro USD farta aan weyneeyo euro USD aan leenahay lacagta aan rabno inaan ku trade garayno waxa waaye waa 1000 beerka aan rabno waa euro USD sanadka aan rabno sanadka markaa ku dhufatid sanadka markaa ku dhufatid sidii shalay kadib waxaa ka dooranaysaa inta rabtid sanadkaa ku dhufanaynaa waxaan dooranaynaa 2019 kaan dooranaynaa hadduu ilaahayno 2019 markaa dooratid kadib wax yar hoosaad wadaysaa qaybtaan hoos wadaysaa wax yar hoos marka wadid descriptionka magaca xasuus daarta inaad ku qortid oo ku qoran kartaa haddii kale safe aad leedahay wax ma qorina hadda waxaan leenahay safe hadda wuxuu ku leeyahay descriptionka wax ku qoro tusaale ahaan ama maalintii aan dooran lahayn ayuu naga rabaa maanta waxaan ka dhigaynaa 4 oo isniin ay ahayd kadib waxaan leenahay safe sidaas aan ku helnayba sidaas marka maxaan ku helnay markaan soo galno websitekeena sidii shalay iyo hadda qaybtan dashboardka markaan ku dhufano iyo qaybtan analyzeka iyo qaybtan backtestga hadda waxyaalaha hadda rabno inaan ku trade garayn waa qaybta backtest markaan ku dhufano waxaa dhacay backtest aan ku dhufanaynaa backtest markaan ku dhufano waxaan haysanaa dhowr calaamad dhowr meel shalay waxay ahayd hal meel keliya waxay ahayd USD JPY laakiin maanta waxaa haysanaa shalay waxay ahayd USD JPY maanta waxaa haysanaa euro USD iyo lacag kale oo lacag kale haysanaa lacagta kalena waxay noqon kartaa GBP USD maanta waxaa haysanaa GBP USD euro USD iyo USD JPY saddex lacaga haysanaa marka maadaama aad aragtid inaad lacag badan ku trade garaysid marba lacagta aragtida dooran kartaa marka hadda waxaan dooran doonaa USD JPY shalay waa dooranay euro USD aan dooran doonaa maanta si u shaqeysan aragno euro USD waxaan leenahay play meeshan riska calaamadda ay ku taalo oo
علامadaas ayaad riixaysaa markaad lacagta rid calaamadaas ayaad riixaysaa calaamadaas aan riixaynaa hadduu ilaahay idmo play aan leenahay play markaan dhahno website-ka wuxuu isku bedelaa sidan ayuu isku bedelaa sida shalay camal wax isbedel kara zaid ma jiraan website sidan uu isku bedelaa marka waxaan sameynaynaa lacagta si aan u qaadano xilligaan trade gareyno raadsinana meeshaan 1 minute waxaan keensanaynaa 15 minute marka session ka rabnaa inaan tagno maanta waxyaalahan barayno waxaa kamid ah session ka rabnaa tagno session markaad tagtid waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay goto ay ku qoran tahay waxaan baranay open position meeshay ku qoran tahay maanta waxaan ku celin doonaa goto position halkaasaan ku dhufan doonaa marka goto position markaan dhahno waxaan arkaynaa london position london waxaan arkaynaa london iyo maxaa lahay iyo new york iyo labadan lacag kale ayagana waxa waaye asian ku ay marka waxaan dooranaynaa london aan rabnaa inaan aragno anaga london taa tagi doonaa hadduu ilaahidmo london nagey marka london ku dhufo london markaa ku dhufto asaa ku geynaa london bas halkan hadda wuxuu noo joogaa halkan noo joogaa meesha noo calaamaysan markaa ku dhufano calaamadan oo ah goto position markaa ku dhufano marka calaamadan ku dhufano maxaa dhacay calaamad markaa ku dhufano waxaa dhacay ny aan tegaynaa tusaale ahaan ny position nagey aan leenahay waxaa isbedeli doona ny position tasuu tegi doonaa ma u baahan inaad blade ahayd aawad wadid marka waxaa ku dhufanaysaa ny open waa kana halkaanu kasoo booday halkaanu imaaday marka waxyaalaha aan rabno wax strategic gooni hadda aan inaan ku dabaaqaba rabo waxyaalahan rabo waxaa keliya inaan aragno sida website-kan u shaqeynayo kadib strategiyooyinkana kulley waa soo gudbin doonaa dhowr strategiya oo aan ku trade garanaa jirto oo hagar laba fake up entry iyo break test iyo strategy badan haysana onion play marka tusaale ahaan strategiyooyinka haddaan fiirino maxaa aragnaa strategiyooyinkan waxaa aragnaa hadda fake up halkaan ka aragnaa tusaale ahaan lacagtan euro USD shalay ay ahayd wixii way soo daadatay fake up waxyaalaha lagu yaqaan waxaa markay soo daadato waa in oo dib loo celiyaa suuq kor u socday waa kana kor u socda suuqan in xoog loo soo daadiyo kadib la soo celiyo marka intrigeena halkaan miya may halkaan maahan kan markuu labaad markuu kor aado uu soo laabto eridan markuu soo laabto halkaan geli lahayn anka long position soo qaadan lahayn halkaan dhigan lahayn markuu flipku uu sameeyo halkaasaan geli lahayn targetkana waxaan ka dhigan lahayn eridan oo suuq xoog lagu soo daadiyey halkaas targetka aan u bixi lahayn suuqna waa heli lahayn aan soo diran aan waxba nagu sameynin halaasaan heli lahayn esarkan taydaan ka dhigi lahayn it's easy intaas aan leeg laakiin taas uma socdo barashadeeda qofkii rabo kulley diyaar waa meel ay taalaan marka waxaan u saaran waxaa waaye inaan websitekaas u shaqeynayo inaan ka hadalno iyo waxyaalaha laga rabo hadda lacagan qaadan doonaa lacagtan qaadanayna waxay noqonaysaa xilliga ny ay furan yahay ayaa lacag qaadan doonaa maadaama suuqa xilligaas in badan kor oo xoog u socdo mana ku salaynayno wax strategy ah gooni hadda aan ku salaynayno malahan waxaan rabnaa keliya dhowr mar waxaan rabnaa keliya siduu u shaqeynaya websitekan inaan aragno oo habka u shaqeynaya aan la jaan qaadno cashirkii hore sida loo gato iyo wuxuu ahaa meelaha laga helo iyo maxaan lahay waxyaala la fiira marka waxaan rabnaa inaan trade qaadano inta trade qaadan sharcigan waxaa waaye inaan news ka fiirino marka maxaa newska aayo newska inaan ogaan waayo news inaan iska fiirina rabnaa maxaan sameynaynaa halkaan ay ku taallo calaamadan ay ku taallo news halkaasaad aad riixaysaa maxaa arki doonaa halkaas markaan riixno okay halkaan riixayna wuxuuna geynayaa websiteka wuxuuna geynayaa maxaa lahay training view marka website training view na geeyo ma ahan training view inaan sanad kale aan joogno waxaan joognaa 4 November 2019 saacadihiina waa kana lacagihii soo baxay oo newsleak soo baxayna waa haysanaa marka sidaas uu egyahay kan qaybtan saas uu shaqeeyaa
marka taas waxaa muhiimada waxaa waaye inaan dadka qaadano oo aragno sida uu shaqeynayo dadka markaa qaadano hadduu ilaahayno ayaan arki doonaa sida uu shaqeynayo marka newskaas kasoo fiirinay tiradaan qaadan doonaa waxaan fiirinaynaa waxyar suuqa hadda meeshuu joogo inuu oo bay haddaan rabna inaan u qaadano waa inuu discount noo sameeya yaan imaadaa haddaan trade sale qaadanan waa inuu discount noo sameeya eedaan u aadaa saaka marka london ay furantay xoog ayuu u baxay kan xoog usoo daatay hadda retesta lagu samaynayaa koro la wadaa in la buuxiyay u badan tahay kan in la buuxiyay kadib lasoo daato waxaa macquul leh in kaasaan la buuxinin almost nuskiis waa la tagay hoos in loo soo celiyo kaasna macquul waayo marka ay xal trade sale aan qaadanaynaa hadda waxyar waxaan ka sugaynaa inuu korno aado kadib trade sale aan soo qaadan doona hadduu hoos aadan dhimaahan trade saleka aan rabin horta in badan uu socdaa uu dhaqaaqaba zonkan ahaa markaan rabin inaan qaadano wuxuu dhaqaaqay lacag badan $100 bib marka muhiimadda waxa waaye hadda maadaama meesha skandarkan oo news markuu soo baxay amalena saaka in london ay furantay uu xoog usoo jibiyey oo eridan imaaday sidee haddana loogu celiyaa zonkaas marka waxaan raadinaynaa trade maadaama weekan hoos la imaaday week kale ka hooseysa u imaaday in oo retest lagu samayn doono halkan trade ayaan qaadan doonaa kii salka uuna dhaafay trade baya halkan ka raadsan doonaa hadduu ilaahayno trade baya halka markaan dhigano waxaan dhiganaynaa tbn halkaas ku sare after 1 more 15 minutes aan ciyaarsiin doonaa waxaan arkaynaa meeshuu aado almost una dhaqaaqay dib ma lahan tradeka maku jirna anaka marka mana toraysa hadduu kor aado hadii kale haddaan ku jiri lahayn markaas waxaan dhihi lahayn faa'iido noo wadaa waxaan samaynaynaa maadaama tradeka uu dhaqaaqay oo si xawli ku dhaqaaqay 15kaas uu ku aaday waxaan sugaynaa inuu noo sameeyo discount oo 15 kale oo noo soo laabto wan hadduu kasii aado 15 kale markaas waa trade qaadaysi ma jiri doonto okay discount wuu sameeyay hadduu soo laabtay waxaa ujeedaa inuu eridii oo uu aaday oo kor erig hoos inuu imaaday waxay u badan tahay inuu eridan hoos inuu imaado kadib kor aado marka 1 more 15 minutes aan dhegeysan doonaa hadda trade ka qaadanaynaa halkaan ka qaadanaynaa astarka hoostaan dhiganaynaa hadduu ilaahay marka trade qaadanan waxaa laga rabaa inaan ku dhufano calaamada long position ayaad waxaad dhiganaysaa meesha aad rabtid trade aad gelisid meesha suuq joogo kadib asarkana intaartaa geysanaysaa tbn waxaad dhiganaysaa tbn waxaad dhiganaysaa qaybta kore ayaa geysanaysaa sanadkiisa tbn markaa qaybtan aad geysid marka waxaa sugto waa inuu tb kugu dhacaa ama waxaa sugto waa inuu asal kaaga dhacaa labadaas wax u dhexeeya malahan intaas inta udhexeysa waxaa waaye risk managementga u dhexeeya waa inaad risk management samaysaa hadduu trade kugu soo laabto waa inaad xiri kartaa ama waa inaad u deyn kartaa khasaarahaada meesha uu ku joogay tusaalahaan halkaan dhiganaynaa kadib markaa trade qaadan maxaa laga rabaa markaa qaadan waxaa laga rabaa inaan ku dhufano marka calaamada dhigano waxaan ku dhufanaynaa open position 10 shil aan soo qaadan kaas markaan ku celi doonaa open position aan riixi doonaa open position markaan riixno waxaa soo baxay sidaan calaamadahan soo baxay almost inuu wax samaysid ma baahnid waxaa samaynaya keliya risk management maxaa waaye marka mee qaata inaad ku khasaarisid oo suuq inaad ku khasaari suuqan 1% ka badan ma lagu khasaariyo waxaan leenahay 1% aan khasaarnaynaa 1% ma khasaarnaynaa okay 1% waa kan oo inoogu qoran tahay halkaan inoogu qortaa 1% $1 ay noqon doontaa halkaan waxaa ku qoran stop take profitkeena meesha noogu egyahay halkaan waxaa ku qoran stop losskeena halkaan suuqa meeshaan aan ka gelina ayaa noogu furan suuqan inaan u geli doona buy marka waxaan samaynaynaa halkaan ku dhufanaynaa keliya bis wax kale aan samaynayna malaha place order aan leenahay place order markaa dhahdid suuqii calaamadaha ayaa wax iska bedelay calaamad iska bedesho waxaa waaye calaamadana imaatay oo hoos oo stop loss ku qoran tahay iyo calaamadan waxay ku qoran tahay entry iyo calaamadan kale ku qoran tahay tb saddexdaas calaamad markay imaadeen kadib waxaan samaynaynaa hadduu ilaahay suuqii aan ciyaarsiin doonaa waxyar halkaan ku dhufan doonaa ashirka shala waaye kaas basic isku ahaa halkaan ku dhufanaynaa si suuqa aan u aragno inuu kor aadayin kara
waxaan leenahay play hadduu kor aado okay hadduu hoos aado okay dhib maaha hoos u soo aaday okay hoos u soo aaday threadkii hoos u soo aaday markii hoostaan ku imaaday tusaale ahaan hoos markuu imaaday oo iridan ku imaaday aan rabin inaan istaajiyo aan dhaho threadkii hoos u soo aaday kadib maxaad samaynaysaa kadib risk management la imaanaysaa hadduu hoostaan ku xirmo hoostaan uu joogo hoos ka hooseysto imaado iska xira laakiin mararka qaar ma shaqeynayso in risk management aa haysid isla markii hore ayay lacagtan waxaa u malaysaa in ay ka go'day kunkii 10 inuu ka go'ay aanan haysanin 10 profit wax profit aan helin 990 ay noqotay dhib ah waa sida loo qaato long position haddana waxaan raadinaynaa short positions loo qaadanayo waxyar waa ciyaarsiin doonaa UST waxaa laga yaabaa inay kor soo laabato dhib ma lahan hadda waxaan raadinaynaa trade sell inaan qaadano trade sell maadaama qaadan waxaan leenahay halkaan ku dhufanayna halkaan waxaa waaye aan ku dhufano halkaan rabo halkaan markaan ku dhufano waa next station inaan tagno waaye halkaan ku dhufanaynaa waxaan leenahay waxaad tegaysaa London maadaama joogno stationka oo Asianka nagay waa hoos u sii aaday tradekii marka haddaad dhihi lahayn esrka waa hayna ilaa halaas drawdown ku geysan lahaa oo kaa qarxi lahaa marka waa inaa ogolaataa 1%-ga haddii kale waxay kuu qaadan lahayd ugu badnaan 2-3% 4% inaa khasaartid marka la ku dhufanaysaa halkaas oo noo calaamaysan waxaan leenahay Asianka kale nagay Asianka saacadaha la furo saacadaas London ayaa la furaa saacadaan New York la furaa saacadaan tan oo Asianka kale waaye calaamadaas kale kulli waxay noo sheegaysaa saacadaha la furo Asianka marka waxaan leenahay London nagay London markaa imaano maxaa dhaca marka London markaa imaano tradekii halkaan ku furmay waxay kor u aaday laakiin tradekii shalay maadaama trade buy aa qaadanay maanta mid buy ma qaadanaynaa hadduu ilaahay London may trade waxaan u qaadan koon buy waxaa waaye suuqaan suuq oo waxaa waaye oo hoos u socdo suuq hoos u socdo waaye eridan u imaaday marka waxaa laga yaabaa inuu hoos sii socdo marka qorshahan wuxuu ahaa inaan practice aan ku sameyno trade kale oo inaan qaadano short position inaan qaadano kaas ayuu ahaa qorshahan waxaan soo qabsanaynaa short positionka halkaan dhigaynaa esrkaa soo dhaweysanayna faa'iida noogu badato tb halkaan geynaynaa marka waxaan leenahay halkaan waxaan ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay open position marka adoo open position ku dhufan haddaa play dhahdid oo playdan iska dhahdid suuq wax lacag ku soconaya iyo wax lacag ay helaysid ma lahan salaha hadda markaan dhahno play calaamada noo saaran tahay calaamada maadaama short position ay noo saaran tahay play aan dhehaynaa maxaa dhacay play markaan dhahno suuq waxaa dhacay inuu dhaqaaqo laakiin suuq markuu dhaqaaqo wax faa'iida nooma wadayo sababtoo ah ma furin trade ma soo furin waa inaad trade soo furtaa trade soo furtid waa inaad ku dhufataa open position ayaa arki kartaa wax dhaqaaqaya wax lacag helaysaa iyo wax kale markaas marka waxaan ku dhufanaynaa open positionkan aan mar kale ku dhufan doonaa waxaan leenahay 1% khasaari bes okay dheh calaamad ma noo saarno calaamad kow soo saar kadib open position dheh stop losska iyo tb waa inuu noo saaran yihiin kadib kaan ku dhufanaynaa calaamadihii way noo soo fuuleen oo haddii aan arkayna calaamadaha ahaa casaanka oo kor aaday tokada hore casaanka hoose joogtay intrigan dhexda joogta tbha cagaarkana hoose joogta taas waxaa waaye tbha iyo intriga iyo eselka marka haddii tan aan sikino maxaa dhacay tan haddaan sikino wax ma isbedelayso iyo tan haddaan soo sikino wax ma isbedelayso haddaa rabtid inaad eselka oo fogeysid ama soo dhaweysid waa inaad eselka aad seexdaa aad soo taabataa hoos soo wadaa ama kor wadaa meeshiisaan u dayn doonaa hadduu ilaahayna tbhan sidoo kale haddaa rabtid in tb ayagoo qaadasid halkaan keensan doontaa ama waa hoos aad geyn doontaa laakiin hadda meeshiisaan u daynaynaa waxaan leenahay play markaan dhahno maxaa dhacay marka suuqii inuu hoos aado ama inuu kor aado suuqi muxuu sameeyey si fiican uu kor hoos u imaaday mar uu imaaday firi mar wuxuu 130 u imaaday laakiin isla markii uu laabtay marka waa iskala soconaynaa dhib ma lahan maadaama tijaabo ay tahay
meesha nu geeya arki doonaa. suuq waxa laga yaabaa inuu faa'iido noo wado. faa'iido noo wada waxaa waaye 116 noo wada. $18 haysanaa. $18 faa'iido markas halkaas ka arki kartaa faa'iido haystay. tan balance lacagta ku jiro waay faa'iidada profitkana halkaas waay. haddii minus ku jiran halkaas ka arki kartaa. marka waxaan ka rabnaa waxa waaye inaan helo 20 si aan u soo celino khasaarihii shalay. maadaama 18 aan haysano 18 waxa waaye lacag ku dhawaad 2%. marka khasaarihii 1% muu ogolaan doono. waa risk management. maxaan samaynaynaa asalkaan soo dhaweysanayna. asalkaan soo dhaweynaynaa halkaan keenaynaa calaamadina waa iska soo xiraynaa naftirkeeda si aan u arkin. halkaan keenaynaa haddii nagu soo laabto tradekii waxay noqon doontaa inaan ugu baxno 00 inaan ugu baxno ama kuma sheeg wax naga qaato. marka waxaan leenahay play TBN intuu imaaday TBN meesha uu imaaday TBN wuxuu u jirsaday in ka yar 3 bib 4 bib u jirsaday 5 bib. haddana wuxuu u laabtay in badan u laabtay. marka still waxaan haysanaa 16 bib $16. marka waxaan leenahay play waxba xirmayno waa iska sugaynaa. hadduu TB noogu dhaco okay. TB ku dhacay TB halkaan uu yaalay. TB markuu ku dhacay maxaa isbedelay? waxaa isbedelay laba shay way isbedeleen. calaamadii ahayd lacagta noo soo tirtay ewer noqotay. meeshii balancega oo ahaa 990 waxay isku bedeshay 1,322. markaan joogno waxaan samayn doonaa waxaan aadi doonaa maxaa lahay exit position aan ku dhufan doonaa si aan u aragno tradekaan qaadanay. ma rabtaa yes aan leenahay. waxaan rabnaa dashboard inaan aragno. dashboard marka waa u imaanay waxaan ku dhufanaynaa analyze ay ku qoran tahay. analyze markaan ku dhufano maxaan arki karnaa? analyze markaan ku dhufano meeshaan waxaa imaaday win rate waxaa noo imaaday 50%. faa'iida aan haysanana 2.13%. tii shalayna waxaan haysanaa 1.6. suuqii sidaan uu shaqeeyey. lacagta aan haysano analyze-ka oo nutusayno EURUSD. haddaad lacagaha kalena waxaa leedahay dibaad aadi doontaa. lacagta kale ku dhufan doontaa. lacagta analyze-kaan aadaynaa. ama dashboard ku dhufo dhib malahan. markaa ku dhuftid waxaa arki kartaa win rate-kaada inuu yahay 33 boqolkiiba kor ugu socdo. meeshaan reportay ku qoran tahay shalay wax ma haysana laakiin maanta wax badan haysana. wax badan waxaa u haysana waxaa waaye win rate-ka iyo waxaan ugu qoran waxyaalaha aan helnay koley iyo tradeada aan qaadanay. waxaan tradekan aan qaatay maahan laakiin wax kale waaye tusaale ahaan waaye. marka adaa samaysan karo buug inaad samaysatid waaye kan. analyze-kaan ku dhufanaynaa. analyze markaan ku dhufano halkaan dooranaynaa lacagta. halkaan waxaan dooranaynaa ay ku taalo EURUSD. markaasaan riixaynaa si aan u analyze gareyno lacagta kale shalay ESTG waa idin nafsikeeda. ESTG waa nafsaan waa. waxaa kaloo ku jirta GBP saaka aan geliyay aan ku probeynay idina laba tiradaan qaatay 2% loss aan ku jiraa. marka sidaas uu shaqeeyaa website-kii. qaybta labaadna waa intaas. waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan casharkan oo ku saabsanaa qaabka loo sameynayo analyze qaabka loo sameynayo iyo qaabka loo sameynayo backtest loo sameynayo simulationka qofka si uu yaqaano. marka simulationka su'aalihiisa soo barteen marka qof kasta ha gato ama maxaa lahay dhowr qof waa isla gadan kartiin. username-ka waa isla isticmaali kartiin. kadib barooweeye lacaga sameysta ku celceliya. yaan la fiirin habeenii maalin training view-ga wax akhriya wax barta. intaasaan rabaa inaan kusoo xiro. waxaan leeyahay Moga Forex kusoo dhawaada.
لايك iyo share iyo subscribe xageena waay insha Allah anka wixii faa'iido ama ku saabsan suuqan insha Allah soo gudbin doona bilaay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.